war farxad leh Szoboszlai oo ka badbaaday khatar weyn miyuu ciyaari doonaa kulanka Tottenham ee Sabtida sida uu qoray Athletic qadka dhexe ee Liverpool Dominic Szoboszlai ayaa rajo ka qaba inuu ka qayb galo kulanka Premier League ee Liverpool Sabtida la ciyaarayso Tottenham xidiga reer Hungary ayaa laga saaray ciyaarta dhamaadkii kulankii Brighton toddobaadkii hore kadib markii uu ka cawday dhaawac anqowga ah baaritaan kadib ayaa la xaqiijiyay in Szoboszlai uu ka badbaaday dhaawac culus wuxuuna si fiican uga jawaabay daaweyntii la siiyay shaqaalaha caafimaadka Liverpool ayaa mar kale baari doono ciyaaryahanka maalinka Jimcaha si loo go'aamiyo in loo ogolaan doono inuu ciyaaro kulanka ka dhacaya waqooyiga London dhanka kale Joe Gomez ma seegi doono kulanka Tottenham inkasta oo isaguna uu ka badbaaday xaaladii ugu xumeed kadib dhaawacii soo gaaray kulankii Brighton si kastaba ha ahaatee maadaama uu leeyahay taariikh dhaawacyo badan Liverpool ayaa si taxaddar leh ula dhaqmi doonta Gomez oo ah ciyaaryahanka ugu muddada dheer ee kooxda jooga dhinaca kale qorshaha Janaayo ee Gunners Arsenal oo rabtay inay Manchester City ku garaacdo Kenan Yildiz Mikel Arteta oo loo sheegay war farxad leh kooxda Arsenal ayaa muujisay go'aan adag oo ay ku doonayso inay la soo wareegto xidiga uu ciyaaray Juventus ee Kenan Yildiz ka hor furitaanka suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo sida uu sheegay Tajlan X Arbacadii maamulka Arsenal ayaa u sheegay tababare Mikel Arteta inay qasab ku tahay inuu iibiyo mid ka mid ah weeraryahanadiisa si ay u suurtagasho saxiixa Yildiz madaxda Gunners ayaa doonaya inay xoojiyaan kooxda qaybta labaad ee xil ciyaareedkan marka uu furmo suuqa Janaayo iyagoo u arkay Yildiz xidig muhiim u noqon kara qorshaha Mikel Arteta Arsenal ayaa si weyn u doonaysa inay ku guuleysato horyaalka Premier League xil ciyaareedkan kadib markii ay saddexdii xil ciyaareed ee u dambeeyay ku dhameysteen kaalinta labaad kooxda Arteta ayaa kulankeeda xigay ee horyaalka la ciyaari doonta Everton dhamaadka toddobaadkan fiid wanaagsan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka la soo gaartay ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran mahadsanid